بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن أو ونكسن داوديال يلبستيال كسر وهذا وربعين تكا وحن ورئيس جار الله يلنا نار رئيس الوزراء هراء دولة كوميل جار كاه الصومالية بروفيسور علي محمد جدي. بروفيسور جدي ورئيس الوزراء وجو وقت جبارة بربك كدب دولته صومر الدلكا. وحن كجمع علمنا هنا نجار بالشيء ورئيس جار كاه عن كوريا لنا نمر كهراء. marka xigta sidaan ognahay ra'iisul wasaare waxa aasaastay xisbi siyaasi ah marka hore muxuu kaga duwan yahay axsaab badan ayaa la asixiyay oo ku dhow 60 xisbi maxaa la dhihi karaa uu kaga duwan yahay xisbigaas xisbiga horta waa cusub yahay oo abaabulkiisu inkastoo muddo dheer jiray xisbiga wadaniga Soomaaliyeed waxa aasaasay muwaadiniin Soomaali ah aqoon-yahano ah siyaasiyiin ah da'yar u badan kana kooban gabdho iyo wiilal ha joogaan dalka gudihiisa ama dibadiisa ha jiraan xisbigani kuma dhalan laablakac muddo dheer ayaa laga baaran degayay fikirka in la dhiso xisbigani wuxuu bilowday oo la curiyay 22 February 2016 iyadoo wali sharciga xisbiyada dalka aan la ansixin oo dood ku jiro marka waxaad moodaa inuu ka curasan yahay sharciga xisbiyada dalka isaga oo jira oo abaabulan oo dadka Soomaaliyeed ay isdiiwaan gelinayeen ayaa sharciga la ansixiyay 2017 baarlamaankii sagaalaad markaas ayaan haddana la saan qaadnay haddana sida aad ka warqabtaan xisbiga waa loo dhameystiray ama waa u dhameystiran yihiin formalitiskiisii oo dhan ijraa'aadkiisii waa u dhameystiran yihiin meesha haddaan ka wada hadlayno oo aan wareysiga ku qaadayno waa xafiiskii xaruntii dhexe xisbiga wadaniga Soomaaliyeed ama Somali Patriotic Party ama xisbiga al-xisb al-wadani Soomaali sida af Carabiga lagu yiraahdo marka waxaan aaminsanahay anigu ka hogaamiye ahaan ka aasaasi ahaan kamida aasaasiyaasha inuu kulmiyo xisbigani afkaar aad u kala duwan oo Soomaaliyeed aqoon-yahano ah hamiguna uu yahay in uu ka mid noqdo xisbiyada u diyaar garoobaya inay u tartamaan hogaanka qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna waxay sugayso oo ay ka sugayso siyaasiyiinta iyo waxgaradka siyaasadda ku loolamaya inay cadaalad sameeyaan in dadku siman yahay in horumarka dalka laga shaqeeyo dana gaar inta laga tago danaha guud ee Soomaaliyeed laga wada shaqeeyo marka waxaan aaminsanahay xisbigan waa xisbi urdan ah waa xisbi muddo soo diyaar garoobayay oo hanan kara hogaanka dalka ummadda Soomaaliyeed oo adeeg kara sidaas aan aaminsanahay haddii aad ku guuleysataan xisbiga wadaniga Soomaaliyeed uu guuleysto doorashada soo aaday maxay tahay waxa ugu xoogan ee uu xoog saari doono xisbiga horta hogaamiyihiisu waa aniga siyaasiyiin iyo aqoon-yahano fara badan baa garba ah waxa ka buuxa aqoon-yahano la tijaabiyoon cusbayn marka baahida ummadda Soomaaliyeed ayaan anigu garanayaa waa aragna u ahay way ka wada dhergantaa Soomaalidu meel kasta oo joogto dalka gudihiisa ama dibadiisa doorkii aan ku lahay 20 sano ku dhawaad in dawladda Soomaaliyeed ay ahayd xukuumaddan ra'iisul wasaaraha ka ahay oo madaxweynaha ka Allahu naxariisto madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed tii kursiga Soomaalida qaranka dib u dhigtay villa Soomaaliya aqalka looga taliyo dalka waxaan aaminsanahay hamiga iyo horumarka la gaarayo iyo halganka la tiigsanayo dawladnimada Soomaaliyeed in aanan la heli lahayn xukuumaddan ra'iisul wasaaraha ka ahay horteed ama la'aanteed marka hogaamiye siyaasadeed aqoon-yahan way aragoo la soo tijaabiyaan marka waxaan isleeyahay hogaaminta xisbiganu way gaari kartaa wayna taaban kartaa hadafka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay tiigsanayso waa gartay sida aad sheegtay waxaad ka mid tahay asaasiyaashii dib u dhigay villa Soomaaliya kursiga looga arrimiyo ma isleedahay iyada oo waqti iyo waayo aragnimo iyo dadaal badan uu ku baxay in qarankan dib loo soo celiyo ma isleedahay wali mirihii waa la gurtay wali oo qarannimadii Soomaaliyeed waa soo noqotay astaan fiican ayaa jirta oo ummadda Soomaaliyeed oo u bisil dawladnimo ayaa maanta jirta laakiin hadafkii lama gaarin baan aaminsanahay gaabis fara badan ayaa jira dhinacyo kala duwan ha ahaato amniga ha ahaato siyaasadda ha ahaato arrimaha bulshada ama dhaqaalaha laakiin dawladnimo maalin kuma dhalato waa sida canug dhashay oo kale oo
marka hore fadhi inuu bartay ay tahay, kadib inuu joogsado ay tahay, kadib inuu socdo, inuu wax barto, inuu shaqeeyo. marka diilo fiican ayaa ii muuqata aniga, laakiin rajadii ay ummaddu laheeday, dowladihii isbebedelayay waxay rajaynaysa ummaddu dowladba dowladda ka dambaysa inay ka waxqabad fiican tahay, oo ay hore u sii wado hogaaminta ummadda iyo in la gaaro guulo siyaasadeed iyo kuwa amniga kuwa dhaqaale. marka in gaabaysan jiraan dhinacyo kala duwan waa aaminsanahay, waana sababta aan isleeyahay xisbigaagu hadduu tartamo baahiyaha jiraya meelaha daldalowda uu dabooli doonaa. waa gartay. intaanan ka bixin arrimaha xisbiga iyo doorashooyinka soo aadan, xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa soo jeediyey oo talo ku keenay in waqti kordhin la sameeyo. maxay kula tahay adiga arrintaas? waxaan aaminsanahay horta waqti kordhin wax la yidhaha shacbiga Soomaaliyeed ma ogola, siyaasiyiintu ma ogola, xataa ma aaminsana dowladdu inay ku haminayso inay waqti kororsi samayso suurtagal maaha. dadka ku riyoonaya ama ku haminaya waqti kororsi waa kuwa aan isleeyahay aragtidayda rajadooda siyaasadeeda mustaqbalka ah. marka waxay isleeyihiin 2 sano sii noolaada iyo 1 sano ilaa soo noqomaysaan, laakiin muwaadinka ama siyaasiga isku kalsoon wax kastoo dhaca dalka in isbedel ka dhaco oo doorasho ka dhacdo aaminsan yahay inuu helo iyo inuu waayana shardi ma aha macnuhu haddana anigu xildhibaan noqonayn yaan isbedel imaan ma aha siyaasad waxaas. ummadda Soomaaliyeed waxa uu dana isbedel inuu yimaado, xukunka maanta jira in xukun kala bedelo, in mid kale sii bedelo. marka u malayn maaya, mana aaminsana anigu in muddo kordhin suurtagal tahay. sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka labadiisa aqal inay ku degdegaan ansixinta sharciga doorashooyinka dalka. waxaa looga fadhiyaa inay ansixiyaan. xukuumadda waa gudbisay, baarlamaankay taallaa. waqtiga dhuma iyo dhibaatadii ka dhalata waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal. waa ugu baaqayaa, waana uga digayaa inay waqtiga lumiyaan. waa garan karaa anigu iyo siyaasi gaamuriyo muddo badan soo shaqeeyaan ahay. marka waqtigu ha dhammaado, doorasho waqti ay dhici karta uma harin. doorasho inay dhacdaa laga rabaa dalkan. dowladda farmaajona waxaa looga fadhiyaa inay doorasho gaarsiiso ummadda nooc kasta ku timaado, laakiin noocii hore aan ahayn oo odayaal ay saxiixayeen wax. haddii ay dhici weydo dulqaad ma la leeyahay loo dulqaadan karo in waqti intaas leeg 3 sano ama 2 sano waqti kordhin la sameeyo? haddii duruufo timaado adduunka force majeure wax la yidhaaha jira, duruuf kalifi karta inaan doorasho dhicin hadday timaado, sababo cilmi ay yeelato, cudurraa ka mida, abaaraa ka mida, dagaalaa ka mida hadday dhacaan, waa khasab bay noqonaysaa in muddo lagu daro, laakiin muddo dheer ma jirta mar laba. waa gartay. dalka waxaa ka jira nidaam federaal ah oo dowlad goboleedyadu ay dowladda Soomaaliyeed hoos tagaan. arrintaas waayahan waxaa ka jiray dagaallo iyo khilaafaad adag oo u dhaxeeya dowladaha xubinta ka ah dowladda iyo dowladda dhexe. maxaad talaa soo jeedinaysaa? horta Soomaalida wax badan baa ayna weli garan nidaamka federaalka ah. iyadoon sharcigiisii la samaynin ayaa dabaqaadiisii la bilaabay. marka waxaan sharci loo hayno waxaa ka iman kara dhibaato fara badan. nidaamka federaalka humaha sida dadka qaar u haystaan. nidaamka federaalka waxa weeye in xukunka la gaarsiiyo tuulada, oo sida hore loo aqoon jiray dowladdu ayna noqonin caasimadda ama dhowr magaalo ayna noqon ama dhowr gobol. waxaa la rabaa adeegyada inay gaaraan bulshada meel kastoo joogto, baadiyaha tuulada ugu dambaysa. marka nidaamka federaalka sidaasaa looga jeeday. nidaamka federaalka waxaa looga jeeday Soomaaliya waxaan ku barbaaran anigaan idinla hadlaya xukun military aan ku barbaan. anigu markii kacaan ku dhalinay arday baan ahay, kadib dugsi saraan dhameeyey, jaamacadaan dhameeyey, takhasusaan aaday, macallin aan noqday, laakiin waxaan ku soo barbaarnay maskax xukun military oo looga talin jiray magaalada Muqdisho Soomaaliya, oo laysanka gaariga lagu wada xamar laga soo doonanayay, buugga caafimaadka xamar laga soo doonanayay, baasaboorka xamar laga soo doonanayay. haddana waad ogtiin meel kasta laga helaya. marka in la furfuro nidaamku, inta furfurmo adeegyada bulshadu ay tagaan meel kasta muwaadinka ku gaaraan. marka waxaan isleeyahay anigu dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxyaabaha mar kasta la isku qabanayo waxaa maqan sharcigii federaalka. waxaana aaminsanahay baarlamaanadii kala dambeeyay inay ka gaabiyeen inay sharcigii federaalka sameeyaan. haddii sharci federaal jiri lahay leesma qabsadeen, dowlad goboleedkana wadadeedu mari lahayd, dowladda dhexena wadadeeda. waajibaad la kala leeyahay jira,
iyo kuwa la wadaago. dowladda dhexe ayaana ah qaranka cidda matalaysa. haddaan dowlad dhexa jirin dowlad ma jiri karto dowlad goboleed. marka arrimahaas oo dhan ayaa isleeyahay haddii loo dhowaado oo laga shaqeeyo waa yaraanayaan isqabqabsiga iyo maaragtay maamulka qaranka iyo midka dowlad goboleedka mar walba isqartabaya. waa gartay markaan dib ugu noqono axsaabta siyaasadda in badan oo ka mid ah axsaabta siyaasadda markii la aasaasay amaba ay hirgaleenba waxay bilaabeen inay dhaliil uun soo jeediyaan halkii dowladda wixii ay qabato mararka qaar aanay ku ammaanayn balse ay arkaan keliya dhaliilaha. maxaa sileedahay waa ku dhaliyeen siyaasiyiintu inay dhaliil uun arkaan iyagoo aan ammaanta iyo horumarka arkayn? horta siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa noocyo kala duwan oo badan. siyaasadda dad bartay oo cilmi ahaan bartay iyo dad kasbaday waaye aragnimo siyaasadeed oo ka shaqeeyay iyo dad isaga soo dhex dhacay oo la isugu jira. dowlad in la mucaarado iyo in la dhaliilo waa sharci. dowladuna ma diidi karto in la dhaliilo oo la yiraahdo waxaanad ku qaldantiin. siyaasiyiintana waxaa la rabaa inay dhaliishu noqoto mid wax lagu saxayo. laakiin Soomaaliya waxa ku batay dhaliishu inay noqoto mid wax lagu burburinayo. siyaasiyiinta raba inay mucaaradnimo wax ku burburiyaan waa kuwa aan garanin qaranka Soomaaliyeed magaca iyo sharafka uu lahaa jiray, Afrika ku lahaa, caalamka ku lahaa. annaga gacmaheena ku burburina anagoo isdhahaynay xukunkan waa idinku xumaadee mid ka wanaagsan la heli doonaa. waxay qaadataa 20 sano ku dhawaad in villa Soomaaliya halkii looga tali jiray Soomaaliya loo dhawaan waayo. marka anigu waan soo dhaweynayaa in dowladda la dhaliilo. dowladdan waxa rabaa hadii la yiraahdo dirbigan rinjigiisu asaan kuma fiicna gaduudu waxa ku fiican cad ama bala ama madow inay qaadatay tira okay rinjiga ay ku fiican tahay meesha aan rinjeyno. laakiin iyaguna inay tiraado maxaana loo leeyahay waa qaldan tihiin, maxaana loo leeyahay waxba qaldan laga yeeli maayo dowladda naftirkeeda. dowladda ummadda leh adeegayaal waa madaxda qaranku ma aha milkiilayaan annagana wada leh ama dalka iyo dadka iyagu leh ma. waqti baa la siiyay, waqtigood inay ummadda u shaqeynaa laga rabaa. hadday shaqay waayaan oo hadafkii laga lahaa ama guulihii laga sugay ay gaari waayaan waqtigooda tirsamay waa la bedelaya. marka siyaasiyiinta Soomaaliyeed saaxiibaday ah ama xisbiya ha ahaadaano ama kuwa madax banaan ha ahaadaano waxaan ugu baaqi lahaa inay u diyaar garoobaan. siyaasiga waxa laga rabaa marka wax dhaliilayo inuu ka faa'iideysto dhaliisha uu tilmaamayo wax ka fiican asagu keeno uu tartamo wixii si fiican ay ummaddu qaadato. laakiin sida hadda siyaasadda u shaqeynayso ma aha si ummadda Soomaaliyeed anfacaysa. waxaan ku dardaarmi lahaa in laga waantoobo in masaakiinta shacbiga Soomaaliyeed waa naxaya maalinta uu maqlo kalimo kulul ama kalimo xun oo u eg in wax lagu duminayo. intaas aan ugu baaqi lahaa in dhaliisha meediyaha la mariyo iyadoo la heli karay in madaxda lala hadlo. wasi horta meediadu waxa uu noqday xoog ka mid ah xoogaga siyaasadda caalamka. marka haddii wax qaldamaan habab fara badan lagu saxi karaa. dagaal waxa ugu dambeeya wax lagu saxo weey. marmarka qaar waxa lagu qeexaa dagaalka waa siyaasad xumaatay oo la toosinayo. waxa ugu dambeeya weey dagaalku. marka haddii inta la taliyo madaxda qaranka la yiraahdo waxaana idinka qaldanay iska daaya war sidaan maahane sidaan yeela haddii ka dhiga adeegan waxay kalifaysaa in wada kasta loo mariyo in la gaarsiiyo. marka anigu waa qabaa meediada naftirkiisu inuu wax toosiyaa la rabaa. xorriyadda saxaafadan aaminsan anigu shakhsi ahaan in la caburiyo iyo in lala diriro iyo ma aaminsan. anigu weligay lama dirin saaxiibaan weligay la ahaa. iyagoo xataa ku dhibaya ayaa la rabaa inaad saaxiib la ahaato aad tiraahdo waxaan dhaafa. anigu dhowr jeer aan la hadlo waxaan ku yiri meesha hadaad aragtaan dab shidan biyo ku shuba basiina ku shubina dhihi jiray waagan ra'iisul wasaaraha ilaa waxa ku gubanaya dadkeena ama danaheena ku gubanaya. marka media in la soo mariyo saxaafadda in la soo mariyo fariimaha khasab ay noqonaysaa hadii la iska dhigatiro. marka waxa leedahay dhigatirka ayaa keenay adiga keenay ma hadii inta talada la dhiibo umana badna siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay inta u tagaan madaxda yiraahdaan waxaana idinka qaldan anigu waa sameeyaa ma hakrado talada waa siyaano ama ha fuliyaano ama yaani fulin. laakiin iguma baaqata aniga talo wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed anfacaysa. markaan ku noqono isla arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada sidaad og tahayba waxaa dhacay doorashooyin kala duwan oo dowlad goboleedyada ka dhacay qaarkoodna qas iyo jahwareer ku dhamaaday. maxaa leedahay way ugu wacnaayeen in waxaas dhacaan? horta siyaasaddu waxay ka bilaabataa in la wada hadlo wada xaajood
wada hadal waxaa ku dhisanba qoyska naftirkiisa ka soo bilow odaga iyo hooyada haddaanay wada hadlin horta isma guursadeen soo maha marka qoys ma dhismeen qoysas ayayna ka kooban tahay bulshada caalamka ama qaranku wuxuu ka kooban yahay qoysas isu tegay marka wada hadal la'aan wada xaajood la'aan ayaa keenaya muxuu ahay in la isfahmi waayo in la kala shakiyo in la kala fogaado hees baa jiri jiray waagaan dhalinteena qabqab dhaafay baa yimid hees leeyahay qabqab dhaafay baa la isku hayaa marka ama dawlad goboleed ha lahaado ama dawladda qaranka ha lahaado maxaa tala ah ama tusaaleyna aad u soo jeedinaysaa anagoo ku guda jirnay qaybta ugu dambeysay waraysigan talo iyo tusaaleyn aad u jeedinayso madaxda dalka hadda waqtiga haysa kursiga ama talada haysa iyo dawlad goboleedyada iyo shacbiga Soomaaliyeed way aragnimadeedu waxay siinaysaa horta waxa aan talada koobaad u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed milkiilayaasha dawladaha way iyaga iskala dawladda iyaga loo sameeyay iyaga samaystay iyaga dhalay marka ka soo qaad adiga hadda waxaad maamushaan warbaahinta ka marka shaqaalaha ka shaqeynaya hadduu fariimaha aad rabto ama ummadda loo rabo gudbin waayo shaqaad ka celinayso ma iska baxad leedahay waxbaad iiga dheelaysay shacbiga Soomaaliyeed asaga garan la awoodiisa haddii wax looga dheelo inuu yiraahdo adiga sidaas kuuguma dhiibanin iska bax meesha xoog la isku haysto sharci iyo doorasho lagu yimid marka shacbiga Soomaaliyeed horta waxaan ugu baaqayaa inay awoodooda gartaan oo haddii wixii ay ka rajeynayeen maamulka ay ka waa inay yiraahdaan joojiya waxaan idinka yeelimaynaa kalsoonida kala noqdaan ee doorasho geliyaan bedelaan madaxda qaranka iyo dawlad goboleedyada waxaan kula dardaarmayaa una baaqayaa markay xilka ku fariistaan inayna u maray inay iyagu dalka dadka leeyihiin inay u qaataan inay yihiin adeegayaal la siiyo contract qandaraas la siiyo leeyahay shaqadan aad fulinaysaa muddadii la siiyay iyo shaqadii la siiyay haddii ay iswaafaji waayaan ay fuli waayaan shaki kuma jiro waqtigu waa dhamaanaya waa iska tagayaan oo kala bedelaya marka waxa wanaagsan inaan lees xujeynin qof kasta anigu waxaan soo maray waqti adag ma jeclayn anoo waqti adag ku jiro oo qarannimadaba la diidan yahay oo dawladnimada la diidan yahay siyaasiyiinta ay dhibto ma jeclayn marka mid kastoo kursiga ku fadhiya ma jecla in la dhibo kuwa hadda wax dhibay naftirkooda hadday madax noqdaan waxay rabaan inaan la dhibin marka dhaqanka ah in madaxda la dhibo iyo in la jilaafo dawladaha iyo waxaasoo dhan waxaan ugu baaqayaa Soomaalida in inta laga waantoobo dalku waa naga badan yahay xilalku dadka waa ka badan yihiin haddii ummaddu ay hesho cadaalad iyo sinaan iyadoo isjecel wada shaqeynaysa dalkuna waa deeqa khayraadka dalkuna waa ka badan yihiin Soomaaliya aaminsanahay oo waa dhulka kuwa hoostiisa ku jira iyo kuwa korkiisaba haddii amni la helo dawlad ummadda sintee u qaybisa cadaalad ugu qaybisa la helo Soomaaliya waxaan aaminsanahay qof baahnaanaysa inayna jirin marka waxaan ugu baaqi lahay halka laga shaqeynayo in lees xujeeyo iyo in lees jalaafo ha laga shaqeeyo horumar iyo nabad iyo ummadda in barwaaqo la gaarsiiyo iyo in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay ilaaliyo waxa kale oo intaas ku dari lahay dalkeena waxaad moodaa aad u badan buu leeyahay ilaalinta hawada Soomaaliya iyo badda iyo xeebaha iyo dhulka Soomaaliya waajib saaran muwaadin kasta weey ma saarna dawlad kale marka iyadana waxaan ku baaqayaa in arintaas la ilaaliyo oo taariikhda aan iska ilaalino in baal madowna geliso ummadda maanta nool ee waxgarata ee siyaasiyiinta ah ee aqoon-yahanada waxaan kula dardaarmayaa in laga fikiro badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dadka aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa inaad waraysiga naga gashay mahadsantahay